الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka hore waan salaamayaa dhammaan golayaasha gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada labaad marti sharafta saxaafadda dhammaan waan salaamayaa. qodobka ugu horeeyaan ka hadlayo waxa weeyaan xeerka dilarka qodobka koowaad magaca xeerkan waxa la yiraahdaa xeerka shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyagoo soo koobaya waxa leeyahay hay'adaha waxa weeyaan xeerkan wuxuu khuseeyaa hay'adaha dawladda wasaaradaha gudiyada hay'adaha qodobkeeda 8aad iyo fulinta waxaan ahayn waaxda xeer dejinta baarlamaanka oo qura iyo waaxda garsoorka runtii waa xafar waa dhowr waaxood oo kale sida bangiga dhexe wakaalada biyaha waxyaasoo iyaguna madax bannaan xeerkan muu sheegin kumana qayaxin inaanay shaqaalahoodaas khuseyn. midda kale magaca xeerkan oo ah xeerka shaqaalaha dawladda wuxuu qodobkiisa labaad number 15 faqradda 15aad uu leeyahay waxa weeyaan shaqaalaha dawladeed waxa looga jeedaa waa shaqaalaha joogtada ah. marka waxa jira shaqaalaha dawladeed oo fara badan aan joogto ahayn marka xeerkan waa in runtii magaca xeerkan uu qayaxaynay inuu yahay xeerka shaqaalaha dawladda ee joogtada ah isagoo magaca runtii markuu leeyahay shaqaalaha dawladda waa inuu ka saaraa oo si wanaagsan u qeexaa hay'adaha ka madaxa bannaan. midda kale runtii xeerkan waa xeer cusub hay'adda dawladdu xeer hore ma laha marka markay tilmaamayso ama awoodda ay maanta leedahay hay'adaha kale ee kuwa madaxa bannaan iyo kuwa kale iyadoo ah hay'ad aan weli lahayn xeer inay xeer soo jeediso sida ay ku maamusho dhammaan hay'adaha dawladda runtii waxaan u arkaa arrin runtii u baahan in laga fiirsado oo xeerkeeda markay runtii qorayso inay hay'adaha khuseeyo oo dhan inay kala tashato. qodobka labaadna soo jeedinaya waxa weeyaan ujeeddada xeerkan qodobka saddexaad ee ujeeddada xeerkan faqraddiisa labaad iyo faqradda koowaad waxa ku qoran in hay'adda shaqaaluhu ay tahay hay'ad dawladeed oo in xeerkan maamuli doono dhammaan shaqaalaha dawladda. qodobka waxaan arkaa runtii qodobkaas in wax ka bedel lagu sameeyo waayo marka laga hadlayo maamul waxa weeyaan maamulku waxa weeyaan waa in si wanaagsan ay u qeexdaa ujeeddada ay maamulku tahay. waxay qodobkan in badan ka hadlay shaqaale qorinta dallacsiinta darajooyinta iyo habka shaqaalaha loo qaadanayo laakiin maamulka waa inay ku caddaysaa waxay wala jeedaan marka runtii kelmadda maamul waa in la fasiraa. qodobka afraad xadka adeegsiga xeerkan waxaa lagu dabaqayaa dhammaan shaqaalaha joogtada ah ee hay'adaha kala duwan ee dawladda. qodobkan laftiisu waxaan u arkaa qodob u baahan tafsiir in wax ka bedel weyn lagu sameeyo waayo markuu leeyahay waxaa lagu dabaqayaa dhammaan shaqaalaha joogtada ah ee hay'adaha dawladda ee kala duwan muu ka saarin ama runtii muu fasirin inaanay ku jirin shaqaalaha hay'adaha madaxa bannaan. marka qodobka laftiisu waa qaldan yahay waa in wax laga bedelaa. midda kale shaqaalaha dawladeed markuu sheegay waxa ku hoos jira shaqaalaha dawladda hoose sidoo xeerkan qayaxayo waxaan ognahay inuu dastuurku shaqaalaha dawladda hoose inay xeer gaar ah leeyihiin ay ku maamushaan shaqaalahooda marka luftii awoodda inay iyagu ku maamuli karaan ama iyagu wax ka bedel ku samayn karaan shaqaale dawladaha hoose oo xeer gaar ah leh oo runtii xeerkan 97/2021 aanu meel ku qeexayn sidoo xeerarka la shaqeynayo iyo xeerarka sidoo u tixgelinayo dawladaha hoose haystaan ama maamulada gobolada ama ha noqdaan hay'adaha madaxa bannaan. xeerka
xeerkan waxa kale uu sheegayaa faqradiisa shanaad shaqaalaha labada gole xeer dejinta waxaa loo raacayaa qodobka kontonaad buu leeyahay 12 kontonaad iyo saddexaad dastuurka Soomaaliland ee xorsaarka labada gole wuxuu sheegayaa shaqaalaha labada gole barlamaan waxay xuquuq kala duwan ka mid yihiin noqon doonaan shaqaalaha dawladda hada ay qodobkaas runtii in dastuurka si wanaagsan loo waafaqiyo waayo waxa jira hay'ado kale oo madax bannaan sida garsoorka xeer ilaalinta aanu xaggan xeerkan wuxuu yiri lagu qodobkiisa 7 waxay hoos ku sheegayaan in laga reebay xeer faqradda 7 xeerkan lagu dabiqi maayo ee madaxda hay'adaha kala duwan ee dawladda ee madaxweynuhu magacaabo marka laga reebo agaasimaha guud sidii runtii ay mudanayaan fara badan u sheegeen agaasimayaasha guud waxa soo doorta madaxweynaha waxa weeyaan waa wax muhiim ah oo runtii fulinta shaqada qodobkan kuma sheegin sababta looga reebay agaasimaha guud wax qodobo dastuuriya ama wax xeer oo kala ah oo ay soo qaateen oo ay leeyihiin waxa looga reebay agaasimaha guud sababta runtii muhiim in lagu qayaxo xaggan sababta uga reebeen agaasimayaasha guud marka qodobkan laftiisa wax ka bedel buu baahan yahay qodobka labaad maamulka shaqaalaha dawladda qodobka shanaad siyaasadda guud ee shaqaaleynta qodobka faqradda labaad waxa ku qoran hay'adaha shaqaalaha dawladdu hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay dejinaysaa siyaasadda lagu hirgelinayo nidaamka shaqaalaysiinta shaqaalaha dawladda halkan waa inay qayaxaan oo lagu qoraa hay'adaha ka madax bannaan waayo sidii hore aan u sheegnay shaqaalaha dawladdu waa shaqaale aad u fara badan dawladaha hoose shaqaale madax bannaan bay leeyihiin hay'adaha madax bannaan baa jira marka runtii qodobkan iyo qodobo fara badan oo kamid ah waxay si caam ah uga hadlayaan shaqaalaha dawladda oo dhan isla qodobka faqradda saddexaad waxay leedahay hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay abuuraysaa nidaam wax ku ool ah oo lagu maamulo shaqaalaha dawladda korna loogu qaado xirfadda iyo nidaamka hufsan waxay runtii fasireen inay dhisanayaan meel wax lagu tababaro waxaan runtii ognahay in ay jiraan dawladaha hoose ay leeyihiin machad ama hay'ad tababar ah oo lagu tababaro shaqaalaha dawladda hoose oo madax bannaan runtii marka waxa loo baahan yahay in runtii hadday machad ama maalgelin dambe ay haddan sameynayso runtii inay la kaashadaan hay'adaha kale ee jira sidii maaragtay aan dee dhaqaale fara badan u bixin oo hadday maxayadu noqonayaan oo machad dawladeed ay shaqaalaha kale kala duwan ee dawladdu ay xaq u leeyihiin inay ku tababartaan inaan loo baahnayn machad cusub oo la dhiso qodobka saddexaad hay'adda shaqaaluhu qodobka 12aad waxa weeyaan waa xeerka asaasiga hay'adda shaqaalaha dawladda waxay runtii ku qoreen xaggan in waxa xeerkan lagu asaasay hay'adda shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah hay'ad dawladeed oo yeelanaysa jiritaan qaanuuni ah waxa runtii qodobkan cadeynaya in ay hay'addan hore wax qaanuun ah ay ku shaqeyso ama nidaam hore ay ugu shaqeyso aanay lahayn oo xeerkan iminka uu yahay xeerka ugu horeeya ku asaasiso shaqadan waxaanay qaadatay qodobka 113 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla qodobka 113 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale ku qoran hay'adaha kale ee madaxa bannaan sida banka dhexe marka waxa weeyaan xeerkan laftiisa ee lagu asaasay hay'addan qodobka ay soo qaadatay
hay-ada kale oo madax bannaan baa jira oo isla qodobkaas siiyey xuquuq dastuuriya marka runtii inuu xeerkanu xaddaaf ku samaynayo hay-adaha kale ee madaxa bannaan ee dastuuriga waa arrin runtii laga fiirsado oo u baahan in xeerkan wax ka bedel lagu sameeyo fara badan qodobka shanaad isla faqradda shanaad isla qodobkan hay-adda shaqaaluhu dawladdu waxay yeelan kartaa maxadyo tababara shaqaalaha civil service institute oo inagii sheegnay qodobkan laftiisu wuxuu runtii soo jeedinaya in dhismo cusub oo maalgelin cusub lagu sameeyo sida qodobkii hore aan ka hadalnay ama aan soo jeediyo waxa weeyaan already waxa jira mudana waad mahadsantahay runtii qodob walba markaan ka hadlo waan soo jeediyaa waxaan idhahaa wax ka bedel buu u baahan yahay waaye marka soo jeedinta guud aan runtii soo jeedin lahaa waxaa weeyaan xeerkan waa xeer cusub qodobo aad u fara badan ayaa ka hor imanaya xeerar fara badan oo dastuurku sameeyey marka waxaan soo jeedin lahaa in xeerkan runtii dib looga shaqeeyo maadaama uu u baahan yahay wax iska bedel aad u fara badan oo runtii laga fiirsado oo si wanaagsan looga tashado maadaama uu yahay xeer aad u muhiim ah oo nidaam cusub aanu dhisayno aad iyo aad baad mahadsantihiin waa aad buu mahadsan yahay